Tariikh ahaan, Ethiopia mar walba ma ahayn dal aan lahayn bad. Dabayaaqadii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, Ethiopia waxay lahayd marin ay ku gaarto badacas iyada oo sii maraysa dhulal markii dambe ka mid noqday Eritrea. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda juqraafi siyaasadeed si weyn ayay isu bedeshay kadib burburkii nidaamkii militariga ee Ethiopia sanadkii 1991 iyo madax bannaanidii Eritrea ee xigtay ee sanadkii 1993. Markii Eritrea ay madax bannaanida qaadatay, Ethiopia waxay lumisay marin toos ah oo ay ku gaarto badacas, waxayna noqotay dalka ugu dadka badan dunida ee aan lahayn bad. Bilowgii Ethiopia waxay sii waday isticmaalka dekedaha Eritrea sida Masawa iyo Asab si ay u adeegsato ganacsiga caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka labada dal oo xumaaday ayaa ugu dambeyntii keenay dagaalkii ba'naa ee Eritrean Ethiopian War. Kadib dagaalka, Ethiopia waxay u wareejisay wadooyinkeeda ganacsi ee ugu muhiimsan dekedaha Djibouti